بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. casharka caawa wuxuu ku saabsan yahay sida dadka sunnaha ah maskaxda looga qabsaday sida dadka sunnaha ah maskaxda looga qabsaday 1950 ayaa waxa ay bilaabeen reer galbeedku mashruuc ah in ay dhaqanka ka bedelaan muslimiinta waayo waxa uu shaqayn weyday habkii militariga ahaa waqtigaas 1950 ingiriiska joogay Somaliland talyaaniga joogay Soomaaliya koonfurta muslimka badankiisa wadamada muslimiinta badankooda iyaga haystay ama Faransiis ha ahaadaan ama Ingiriis ha ahaadaan marka 1950 Maraykanka ayaa arkay in Yurubiyaanku Ingiriiska iyo Faransiisku Jarmalka markaas uu jabay Ruushka jabiyay ama xulufadii Ruushka ayaa jabisay 5 sano ka hor deedna Maraykanka wuxuu arkay inay Ingiriiska iyo Faransiiskuna daciifayaan waxa kaliya ee uu iska ilaaliya ay tahay xulufada shuuciga Ruushka wadamada Yurubta bari oo dhan oo Ruushku wato marka wuxuu arkay in Ingiriisku ay daciif yihiin Faransiisku daciif yihiin deedna Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Yuhuuddu waxa ay qalad bay sameeyeen waxay sidaahdeen Swiiska muxuu ahay badda Masar waa wadan daciifa deedna ka qabsada Masarna dadka waa haysateen fikirka ka bedesheen marka dagaalka qaadaan iyaga ku kacaya Jamaal Cabdinaasir ilaahay u naxariiste way ku fashilmeen masaaridii dhexda xiratay Ingiriisku ku jabay lacagta boonka baa dhacday 350kii Faransiisku dagaalku ku guul daraystay Yuhuuddu way ku guul daraystay deedna waxa ay noqdeen inay sii baaba'een deedna Maraykanka arkay fursad yani waxaan kuu sheegayaa dad caqli leedahay waxbaad ku qaadan karta inaan iyagu isjeclayn isma jecla Maraykanku wuxuu isku afay yihiin haddana wuxuu arkay inuu ka qaadi karo meesha Ingiriiska wadamadii uu haysan jiray Ingiriiska uu bedeli karo Faransiiskana uu oran karo bax Ingiriiskana oranaya bax markaas ayay bilaabeen Maraykanku ceebtii Nixon ee loo yaqaanay Watergate-ka waa hotel magaciisa laga duubay waxyaalo uu yiri telefoonka madaxweynayaashoodu waxay sheegaan waa la eegaa laakiin ka lagu xumaynayaa la sii daaya Yuhuuddu wax ka sheegay khaniisyadu wax ka sheegay deedna Yuhuudda daba gashay laba nin oo Yuhuudi oo suxufiyiin New York Times bisa Washington Post waraaqda koowaad waraaqda labaad ee Maraykanka xitaa wararka ku daawataan Hargeysa iyo Xamar iyo magaalooyin kale wararka meesha soo sameeysa waa Washington Post iyo New York Times labadaas soo sameeya waa labada jariidadood ee waaweyn ee Yurubna ka haysta Yurubna wuxuu dib ku soo celisaa Afrikana hadalkeeda bada ayaa daba galay deedna luushi waxba kuwii cajaladaha duubayay madaxweynaha telefoonkiisa ayaa sii daayay deedna waa tii uu ku qasbanaa la iscasilo waxaan dhageystay dhowr iyo 20 sano ka hor markaan ardayga ahaa siyaasadda baranayay khudbadiisii casilaadda Nixon ama Richard Nixon loo oran jiray wuxuu kaga hadlayaa carabta 5 milyan oo carab ah oo ina nacbaaban bedelay ayuu ku faanayaa sidee buu bedelay marka isagu buu bedelin reer galbeedka oo dhan baa bedelay dadka sunnaha uu ka hadlayaa waxay u isticmaaleen
buugaag idaacadaha idaacadaha carabiga ku hadlo oo kale af soomaaliga oo kale sida BBC da laanta af soomaaliga Voice of America Mareykanka iskale lacag siiya dowladda siisa af soomaaliga ku hadasha waayo in laga bedelo marka waxay ku guuleysteen in ay dadka ka dhigaan reer galbeed oo kale reer galbeedka la hiigsado waa gabadha niqaabka xiran waa ka gadhka dheer leh khamiiska xiran waa ka tayga xiran waa ka surwaalka xiran waa ka yare kubadda daawanaya waxa oo dhan waxa ay u arkaan in reer galbeedku ay hore u mareen haddii ay tooda raacaana haddii afkooda ay ku hadlaan ingiriiska sida loo soo dhexgeliyo waa adiga arkay khudbadda soomaaliga hadalka soomaaliga ingiriis jaban oo aan xitaa waqti la gelinayn macnihii sida loogu dhawaaqo waxaa tahay qof wax bartay waayo iyagaa kugu yidhi waxbaad baratay waxa kaloo ay sameeyeen ingiriiskuu samayn jiray berbera ragga saraawiisha gaagaaban xidha booliiskiisa waxaan ka hadlayaa kontameeyadii iyo 1930kii markii waddanka haysteen ay joogeen lacagta way siin jireen laakiin ragga yidhaahda anagu dabagaabka ma xidhanayno laaluush lacag yar baa la siin jiray mushaahar baan ka wada kuwa u shaqeeya ingiriiska lacag dheeraad u siin jiray maanta hablaha u shaqeeya waxay ka dhigaan siyaasiyiin golaha sare galaan inamada u shaqeeya golaha sare galaan siyaasiyiin suxufiyiin BBC da kale aad ka arkaysa Channel 4 oo kale buugaag waxay u qoraan buugaag bay siiyaan jimciyada qormaha ka dhaxaysa oo kale lacag ay soo siiso sidii gabadh bari dhaweyd habar jeclaah oo Mareykanka degan farxiyo heblaayo la yiraahdo oo buug qortay qoyska inay gabadha ninkeeda iska celiso waxaasoo dhan iyaga bixiya waxay u bixiyaan ay dadkaa kuugu doorteen dadkaana calaamadaha ay ku doortaan bay kuu sheegayaan haddaad akhrido sirtoonkooda sida ay dadka u doortaan dadka wax loo sheegi kareen caqliga badnayn bay doortaan kuwaasi adiga waxay kaaga dhigaan inay yihiin hore u mareen dad caqli badan yihiin ku dayo ilhaan taageer suldaan taageer kuwa kale taageer deedna waxay kaloo ka galeen iminka jaamacadaha sida jaamacadda abaarsoo kale jaamacadda hargeysoo kale jaamacadaha xamar dhowr ay u fadhiyaan qaarkood la shaqeeyaan loo sheego waxa dadka laga dhaadhicinayo waxaan kugu yidhi idaacadii bay kaa qabseen waxbarashadii xaruntii dhaqanka iyo siyaasaddii imika haysteenba qarni 70 sano imika ay haysteen siyaasadda ilaa laga soo bilaabo 1955 marka 8 sano marka hala yaabin inay mudaharaadka usoo bixi waayaan hala yaabin inay aqoonsiga Soomaaliland ku farxaan hala yaabin inay xamar marka uu xasan sheekh saxiixo inuu ciidamada Mareykanka siiyay 5 meelood sanadkii hore bisheedii laga mudaharaadi waayay hala yaabin marka ina yaroo Soomaali aan aqoon oo Kanada ku dhalatay oo qaawan oo nin madow wata ay furto xariga ka jarto safaaradda London ee Soomaalida waa lagu faanayaa waa la amaanayaa waa lagu caaya dad wax ka sheegto dad tirada war waxaan wax xaq maahay waa dadka waa waalina adiga lagu maagaya waayo waa dad ilaa kontameeyadii maskaxda laga soo xadayay marka waxa kaliya u baahanay waxa weeye inaan soo kicino ka Arsenal daawanaya ka TV warka eegaya ka khamiiska xidhan ee ku faanaya inankayagii baa madaxweynaha Mareykanka la taliya ka maqaaxida fadhiya waxa oo dhan oo isku wada mid waa dad maskax la qabsay marka waxaan u baahanahay inaan sabr yeelano waxaan u baahanahay inaan hab aan ku gallo oo aan dadka maskaxda uga xoreyno dad qof xoreyso dad 10 qof xoreyso dad 100 qof xoreyso dad 10 qof xoreyso waa guul weeye laakiin ma aha in la iska qayliyo in la ilaawo dadka ma aha dadka waxaan ma iska daayaan war dadkani maxay u taageerayaan aqoonsiga ma aha taasi waxa weeye daciifnimo waa inaad hab la timaado saad marto buugaag qorto idaacada samaysato ku celceliso waayo celcelinta ayaa socda waxa barigan ardayga cilmi nafsiga baranayay 2004 waxa lagu soo celceliyay runta xitaa beenta dadku way maqlaan waxa dad ku soo celceliso
marka dadkan waa dad laga soo shaqeeyey waxooda lacag baa lagu bixiya ilaa maanta. Waxaa laga hogaamiyaa soomaalida khadkaa laga hogaamiyaa wixii muraayada ama tv-ga ha ahaato ama telefoonkooda ha ahaato. Marka waa fursad haddii aad doonayso inaad bulshada soomaalida wax u tarto labadaa ka xukun. Is odhanin waxba imika kuma maqlayaan, hadhow way ku maqlayaan. Haway qof jiifo haddaad kiciso qofkaasina laba qof oo kale uu sii kicinayaa. Ha qancin, laakiin hab iyo samee. Maalinba wax ka hadal aad is leedahay waxbuu kusoo kordhinaya. Meel fayow ma jirto soomaalida imika 5 sano waxaa la war mudaharaadun baa u bannaan. Meel fayow ma jirto. Waa xarunta dhaqanka, waa masaajidka, waa qoyska, waa dugsiga, waa malcaamadda, waa jaamacadda, waa xarumaha dadka meelaha laga xukumo oo dhan. Wax oo dhan waa la qabsaday. Marka uma baahnin inaan iska qaylqaylino, inaan qeyrano uma baahnin. Waxaan u baahnahay inaan caqli iyo xikmad isticmaalo oo aan dadka soo xoreyno. Dadka waa la kaxaystay. Markaad aragto nin maqaaxi fadhiya Soomaaliya, ha la yaabin, reerkiisii wuu dayacay. Markaad aragto nin yaroo 20 jir oo kubadda Arsenal taageeraya, ha la yaabin, maskaxda laga qabsaday. Markaad aragto gabar TikTok ku jirto qaylinayso ragga caayisa, ha la yaabin. Waxaa lagu yidhi ragga iska celi. Xorriyad baynu u baahnaa.